الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينة كحجينك جمهورية سوماليلاند قدومياياشا حسبيدا golaha wasiirada dhallinyaradii taariikhdan maanta lahayd ee UFO maamulka iyo guddiyada Sooyo mas'uuliyiinta kale dhallinyarada jaamacadaha iyo ardayda kale haweenka dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaa la xusayaa taariikh umadeed halgan umadeed 20kii Febraayo 1982 ayaynu xusaynaa. adduunyada ummad aan taariikh ku abtirsan oo taariikh lahayn uma jirta ma noqoto. maalintan oo kale waxa keena marka talis iyo nidaam dawladeed ummad leedahay ummadeeda horar ku noqdo ayaa wuxuu yimaadaa in halkan noocan oo kale uu bilaabmo. maalintan waxay ka mid tahay maalmaha aasaasiga u ah qarankan Somaliland iyo jiritaankiisa ayay ka mid tahay. waxaan jecelahay bal marka ugu horeysa raggii maalintan lahaa ee 20 jir lagu xidhay ee qaarkoodna ay dhinteen bal inta ka nooleesa halkan inala joogta waxaan ka codsanayaa inay istaagaan. cashaanno hortood baanu baxnay maalintan iyaga la xidhay. cabdi ismaaciil duse professorkii baa ka mid oo raggii jaamacadda madaxda ka ahaa ee arrimaha loo xidhay bay ahayd. sidii Axmed Maxamed Badar uu sheegay cusbitaalkan Hargeysa cusbitaal laga guuray uu noqday iyo cusbitaalada kale ee Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan xasuustaa cusbitaalka Ruushka oo Berbera oo saldhigiisii ciidamada uu u dhisay oo xilliga qalabkii adduunyada u dambeeyay ee caafimaad yaallo ayaa subaxtaan la soo dirayo waxaa la yidhi xamar ha loo soo raro. nin dhakhtar oo korneyl baa haystay saxardiid oo reer Boorama saxardiid baa diiday oo in la rari maayo rar baa lagu yidhi haddii kale waa lagu xidhayaa. horta waxyaalaha dhacay waxaasay ahayd raggan maalintaa hawshaa galay taariikhda inoo xasuusnaanaysa taariikhdoodana waynu xusaynaa. sidii raggii iga horreeyey ay sheegeen dhallinyarada iminka fadhida waxaa soo maray iyo arrimaha dalkan ka dhacay idinka nasiib baa leedihiino laakiin nasiibkiinnu wuxuu dul yuururaa xabaalahan marka durduro ilaa iyo eerigaabo iyo dhul badan wixii ka dhacay ayaa wanaaggiinna lagu dul yuururaa. marka waxaa la rabaa qarankan inay ilaalisaan. laba shayna waa ku ilaalinaysaan. opportunitieska laydiin sameeyey ee dhallinyaradii idinka horreysay aanay lahayn magaaladan Hargeysa waxaa mamnuuc ahayd in dabaq labaad aqalka la saaro. waqooyiba siduu u leeyahay dabaq labaad in la saaro ayaa digrii presidential oo madaxweyne saxeexay oo wasiir daakhili saxeexay baa yeelay. Hargeysa waa lagu hadlay kii ugu horreeyay ee la doonayo dabaqa labaad la saaro. maanta ilaa naascaanood ilaa eerigaabo jaamacadihii baa ka furaa xaggee wal ka furaaya. markaa dhallinyarada waxaa la rabaa inay han yeelato inay mustaqbal higsato in waxyaalaha fara badan ee dhallinyaradu ay ku lunto la iska ilaaliyo. ninkii Ruushka ahaa ee nuclearka adduunka hindisay ayaa dhallinyara waxay isku qabatay inantaasi way qurux badan tahay iyo waa laga qurux badan yahay. dabadeedna markii dambe faanadii quruxdii noqotay sakhaaraf baa loo yeero waxa
inamadu waa wada dhalinyaro waa daadiina halkaa fadhida dabadeedna shaqaale ku xuli quruxdu waa dhalinyaranimada dabadeedna inamadu way fahmi waayeen quruxdu waa dhalinyarada ila inan baa laga hadlaya waa lagu noqdo waxa lagu yidhi shaqaale fog su-aashaydii kama jawaabin maxay isku qabateen inanta halkaa fadhida haye wuxuu yidhi inantaasi way qurux badan tahay laakiin taa agteeda taagan ee islaantii quruxi kama muuqato laakiin markay iyada lekeed way qurux badnayd inantaasi waa inan reer yuruba waa blond hair laakiin mid baa caashaqsan buu yidhi inan madow mid baa kalarkana midabkana carabta caashaqsan asalka marka filosofikali waxa ka soo baxay waxa weeye quruxdu waa dhallinyaranimada ragga idinka horreeya halkaa fadhiya iyo aniga yaa ka mid ahay xilliga ay halkaa joogeen wada qurux bay lahaayeen garku muu caddayn timuhu may caddayn qaar aan timamo lahayn baa imika halku fadhiya marka waxaad leedihi waxaad yeelaysaa ayaan dhow arrintu sidaa ku socon mayso arrinka labaad waxa weeye dhaqan fara badan oo aynaan lahayn baa soo baxay dhallinyaradiina jaamacadaha ku jira guddoomiyaha iyo maamulka sooyo waxyaalaha laga rabo waxaa ka mid ah in laga sabuuriyo dhallinyaradeenna dhaqamada aynaan ina ku lahayn qodobkan kaga baxay waxa weeye waa qabyaalada sooyo waa la soo barbaariyey waxa loo xambaariyey halgankii ragga halkaa fadhiya oo wada aqoon-yahana oo xilligaa cid aqoon-yahana oo iyagoo kale hiba dalka ay ku yar tahay waynu soo barbaarinayo sooyaynu dilkeena sooyana urur qaran baynu ka dhignay dhallinyarada kelmadda kula dardaarmaya waxa weeye waa qabyaaladda idinku kuma qaxwaysaan idinku waxba kuma heshaan kuwaa soo halgamay qabyaaladda kumay soo halgamin dhallinyarada waxaan leenahay weedka qudha ee aan leedihiin ee mustaqbalkiina baabiinaya waa qabyaaladda yaa ku xoogsada nin xooggiisa maaro oo afkiisa maaro oo ku afkiisaareeyaa qabyaaladda ku xoogsada xilli baynu gaadhnay aynu halgan badan soo marray somalilan daabaynu sanadii 26aad la ciirciiraynaa oo aynu xorriyaddeenna haynaa dhallinyarada waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad uga digtoonaada laba qolan halkan baa uga dirayaa dagaalkii degmada ceelafay ka dhacay iyo ka socda kalabaydh iyo laascaanood koonfurteeda dadka waxaanu leenahay islaamka ilaahay haddaa ka mid tihiin ummadda ka daaya dhibta arrinta caqligu ha shaqeeyo nabadgelyada lagu soo dabaalo ufa waxaan leenahay aad iyo aad ba u mahadsan tihiin halkan ninaan doonayay inaan kaagabaa ka kacay oo cabdilqaadir alfal la yidhaahdo oo raggii la xidhay ah oo dilka lagu qaaday oo raggii ka yaryaraa ah waa nin yaroo gaaban ninka la kulmow waa nin caqli badanna gaabnaantiisa aan ku siganin cabdilqaadir alfalna waxaan leenahay adiga cabdi ismaaciil iyo raggii ilaah aad iyo aad ba u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مركز waxaan u mahad celinaynaa soo kambani soo gasho iyo